sanadii 1987 ninkan oo lagu magacaabay Stephen Rothstein ayaa waxa uu iibsaday tikid diyaaradeed oo inta noloshiisa ka dhiman uu ku safri karo. diyaaradda American Airlines ayaa sanadii 1981 waxa ku dhacday dhaqaale xumo taasoo sababtay inay iibiso tikidyo golden tickets ah oo lagu magacaabo Airbus kuwaasoo ay suuqa soo gelisay sababo dhaqaale xumo maadaama bangiyada aysan ka soo qaadan karin lacago deyn ah. lacagahaasina waxaa jirtay interest rate ama lacagta ribada ah ee saaran inay aad u sareysay. si ay lacag u samayso degdega tikidhadan loo yaqaano golden tickets Airbus oo 250,000 jooga tikidkii ay suuqa soo dhigtay diyaaradda American Airlines. balse Stephen Rothstein ayaa ka mid ahaa dadkii iibsaday diyaaraddaas waxa uu ka bixiyay hal tikid 250,000 waxa uu u safray meel walba oo dunida ka mid ah. tusaale ahaan waxa uu u tagayay quraacda magaalada Paris ee waddanka France halka uu qadadiisu ahayd magaalada London iyadoo ay jirto inuu ka casheynayo New York maadaama uu haysto tikid uu hal mar gatay 250,000 uu ka bixiyay taasoo siinaysa inuu meel walba oo dunida rabo u safri karo. balse diyaaradda American Airlines ma aysan filayn in markii ay iibiso tikidhada noocaas ah dadkeeda macaamiisha ah ay ugu safri doonaan sidaan xad dhaafka ah. Stephen Rothstein wiilkiisa mar la wareystay ayuu waxa uu sheegay inuu safarada xad dhaafka ah ee aabihiis aad u dhibsan jiray. diyaaraddan American Airlines ayaana waxa ay filaysay in macaamiisheedu u isticmaali doonaan tikidyada noocan ah sida caadiga ah balse markii la soo gaaray sanadii 2008 ayaa laga joojiyay fursadaas qaaliga ah ee uu waqtigiisa ku soo qaatay waxaana dib loogala noqday tikidkaas. ma iibsan lahayd tikid jooga lacag inta la eg si aad dunida meesha rabto ugu safarto haddii ay ku soo marto fursadaas?